waxaan haddana kala furaynaa baalasha buugga halgan iyo hagardaamo ee uu qoray madaxweyne mudan cabdulaahi yuusuf baalka 82 waxaa ku qoran sheeko xiiso leh balse ka hor imaanaysa hadalkii jenaraal Galaal ee ahaa inuu Cali Nuur ahaa hantiilo weyn ilaa haweeney qaybta uu kaga sheekeynayo madaxweynihii Soomaaliya mudan Cabdirashiid ayaa wuxuu leeyahay mudan Cabdulaahi Yuusuf intii cashada loo fadhiyay ayaa waxaa dhacday arin lala yaabay waxaa qolweynihii cashada soo galay nin diif badan ka muuqato oo dhar reer miyi qaba waa biladay gambarkaaga soo qaado kaas oo aan qofna albaabka ka celin ninkaas oo ay ka muuqatay isku kalsoonaan xad dhaaf ah wuxuu sidii uu soo socday isa soo taagay dhabarka madaxweynaha mudan Cabdirashiid markuu isha ku dhuftay buu aad u farxay oo si qalbi furan ku yiri mudan Cali Nuur soo dhawow ninkaas dad yar baa garanay intii aan garanaynin hoos bay isku wada weydiiyeen ninkaas madaxweynuhu isu taagay marba ayaa la ogaaday inuu yahay halgamaagii weynaa ee SYL kaas oo dalka oo dhan caan ka ahaa heesa tiro badan magaciisa lagu alifay kuwaas oo shacbiga qiiro lagu galin jiray Cali Nuur wuxuu madaxweynaha ku yiri hadda hawlan baatihiin waxaan si jeclaan lahaa inaan beertii kugu arko hadalkaas oo loo qaatay inuu doonayay inuu kali ku arko waxaas dadkii yaab galiyay sidii madaxweynuhu ugu jawaabay markii uu yiri Cali Nuur ma waxaad u jeedaa beertii villa Soomaaliya haabuu ku yiri wuxuu intaas ku daray isaga oo fiirinaya dhinaca uu ka fadhiyay mudan Sheekh Muqtaar hadii aan Cali Nuur is arki weyno waxaan kaala balamayaa Sheekh Muqtaarow adaan kugu ogahay Cali Nuur Sheekh Muqtaar baa yiri madaxweyne xagee aadaysa wuxuu yiri ilaah baa yaqaan malaha Cali Nuur inta uu yaabay buu madaxweynaha weydiiyay inuu meel kale aadayo madaxweynihii wuxuu ugu jawaabay waxani waa adduunyo oo wax kasta ayaa dhici kara ee Sheekh Muqtaar baa hadii aanan joogin ku qaabili doona ilaan waa dardaaran madaxweynaha hadalkiisu dhammaan dadkii qolweynaha cashada u fadhiyay waxay la yaabeen hadaladii madaxweynaha nasiib daro waxaa lagu dhici waayay in madaxweynaha la weydiiyo sida wax u jiraan ee sababta ka keentay inuu Cali Nuur kala dardaarmo Sheekh Muqtaar iyadoo oo la wada yaaban yahay bacashadii laga kacay waa biladay hayga herine isoo raac